ما هن وفتي دوب لو قابلي ووفتي مارت محن كرada loo qaabilay safihi loo qaabili jiray wufuud iyo dal booqda si uu qaabili jiray wasaarad walbana wasaaradeedii oo maarta maxaan ku raadayay yeela kulantay oo maarta is dhaafsadeen maarta warbixin is dhaafsadeen heshiis gooniin ay wada galeen marka heshiis duub loo galay ma madaxweynuhuna ra'iisul wasaaruhu la kulmay marka waxa tiri waftigoona jaxay baa noqday maxaad ka wadaan waftigoona jaxan marka xuduudahaaga dadka ka soo talaabaya la kulmaysid oo ina dawlad ahayn oo dawladahan la kulmaynin waxa la kulmaya saraakiisha xuduudaha la kulmaysa hadda Soomaaliland lagu qiimeeyay sida Maxamed Saad ku qiimeynaysid de waxa la kulmi lahaa maaragtay maxaan ku raadayay taliyaha fadhiya wajaale yaa la kulmi lahaa oo ku filaa laakiin maaha ودولة بوا قنصنتها إثيوبيا ولي ما يسنشاعنا لكن وقت هذا والله في لي أنا شاعر إثيوبيا لكن هبدأ كمر كأنه فيرنه يقاب ولا دق ما يسون لأنه ما نام بحنن أنا عبد الشكور واحد هذا بحني يا ما واحد يقول نور يديدي كرتنا بحين كرتنا ما وواحد إثيوبيا ضمع إثيوبيا كجرا وياه واحد مدة سومال لأن إن أطلع بسطي وذيقة إن هرا أطلع بسنن مركا كل ما ذن جوني ده ده كان لوك كل ميان حفيظ والبا وزارات كستا وحبا قصية وهي قصية بكواد هاللي شركة المستقبل أي حاج كي عمرض وحي بشان كوسا مايسي قيمة دي السندات كي أبد وقبل لعنا تاسوه $200 أو كليا وحانا لغو صودو بيا موقالو إيدو سعونا يسمو دو كوبان حدبا ولا لها تعال إن لغو عمريو والدين تودي دماتي والد كحانوسانا يعيد كستو أي تعلايين حلا حريران نمبرهذا شاشة كموقع. waxaa magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland galabta ku laabtay waftigii uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro kaasi oo muddo 2 maalmood ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia. Waftigu waxa uu sheegay inay kulamo la qaateen mas'uuliyiinta dawladda Ethiopia isla markaasina bal waxaynu eegi doonaa waxyaabaha ay ka wada hadleen waftiga Soomaaliland iyo sidoo kale dawladda Ethiopia. waxa ay la jooga saaxiibkii Cabdi Shakuur oo balaarintaasi aan wax ka weydiin doono Cabdi Shakuur soo dhaw marka hore Soomaaliland intaana dhawada ku horeen dawladda Ethiopia le dawladda Soomaaliland dadka tirada maxaa ku halay ma Ilaahay ba ku cadaabay taas ay noo dambeysay bal ka war hadda Cabdiraxmaan Ciro waftigu hogaaminayay cuslaa aynu hore uga waranay dhowr jeer iyo Ethiopia maxay ka wada hadleen inta loo yahay نورو هرتا لبدا دولة waxay ka wada hadleen kulan najaxay bay ka wada hadleen oo maaragtay maxaan ku raadayay guuleystay oo si guulan ku soo dhamaaday waftigana si ballaaran ayay dawladdu maaragtay Ethiopia u soo dhaweysay madaxweynaha iyo waftiga la socdayba ra'iisul wasaaraha Ethiopia si adag buu u amaanay Soomaaliland maamul wanaaga iyo nabad iyo xasiloonida ay maaragtay maxaan ku raadayay geeska Afrika ay maaragtay maxaan ku raadayay ka qayb qaadanayso si adag buu u amaanay madaxweynaha maaragtay maxaan ku raadayay Soomaaliland wadiiqada saxda uu ku hogaaminayo waxa kale oo iyagana maaragtay maxaan ku raadayay kulamada qayb ka ahayo gooni u kulmay wasiirka hawlaha guud ee maaragtay maxaan ku raadayay Ethiopia wasiirka hawlaha guud ee Soomaaliland wasiirka maaliyadda Ethiopia iyo wasiirka maaliyadda maaragtay maxaan ku raadayay Soomaaliland taliyaha maaragtay maxaan ku raadayay ciidamada Ethiopia maaragtay iyo taliyaha ciidamada Soomaaliland taliyaha sirdoonka Ethiopia iyo taliyaha sirdoonka maaragtay Soomaaliland shirku marka wuxuu ahaa maaragtay kulamadaas gooni marka ma in wasiir iyo taliya la isugu maalootay maadaama oo la galay heshiisyo heshiisyo waxa la galayay maaragtay maxaan ku raadayay wasaaradda gooniga qusaysan waraysiga war nagu sheegay amniga markay timaado militariga markay timaado Soomaaliland ciidamada Soomaaliland lagu tababaray gudaha Ethiopia dana military bay ka leedahay gudaha Soomaaliland marka mar walba maaragtay maxaan ku raadayay labada shakhsi ee qusaysan ka wada hadlaya waa taliyaha militariga iyo taliyaha militariga weyn nabad sugidda markay timaado iyo amniga markay timaado taliyaha nabad sugidda ee Soomaaliland wuxuu la kulmay taliyaha nabad sugidda Ethiopia marka labadooduna waxay ka wada hadlayaan sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen bariga Afrika maadaama ay ka jirto argagixiso oo maaragtay maxaan ku raadayay mar walba qalalaasyaal ay ka jiraan si uga wada shaqeyn lahaayeen labada sirdoon ay uga wada shaqeyn lahaayeen maaragtay maxaan ku raadayay waxyaabaha labada dal ku maaragtay maxaan ku lidiyo ku marka waa Soomaaliland iyo Ethiopia waxaad moodaa Soomaaliland inay u talaabsatay wadiiqo ayna hore ugu talaabsanin marka kulamadan goonida ee dadkan ay ku kulmayaan xafiis walba iyo wasaarad kasta waxba quseeya wixii quseeyay bay ka wada hadlayeen marka waxay ka dhigan tahay ma ahan wafti duub lagu qaabilay waa wafti maaragtay maxaan ku raadayay loo qaabilay safihi loo qaabili jiray wufuud iyo dal booqda si uu qaabili jiray wasaarad walbana wasaaradeedii
oo maarata maxaan ku radaa ay la kulantay oo maarata is dhaafsadeen maarata warbixin is dhaafsadeen heshiis gooniina ay wada galeen marka heshiis duduub loo galay maaha madaxweynuhuna ra'iisul wasaaruhu la kulmay marka waxaa tidhi wafdigoo najaxay baa noqday maxaad ka wadaan wafdigoo najaxana ujeedadii loo yimid ujeedadii loo yimid oo ahayd in heshiisya la galo maxaa heshiisoo la galay heshiisyo fara badan heshiis military baa la galay ku amni baa la galay ku dhaqaalaa la galay ku maarata horumarineed baa la galay ku maarata maxaan ku rahdaa iskaashi baa la galay maarata labada dal ah wax fara badan baa la galay xuduuddaa la galay maarata heshiis ku saabsan Ethiopia haddaysan Somaliland aan u aqoonsanayn sifaha maanta ay kula kulantay iyo meeqaamka ay kula kulantay kulamo kulmeene markuu Axmed Midoobe tago magaalada Addis Ababa qaabka loola kulmo ama uu Saciid Cabdullaahi Deni tago qaabka loola kulmo iyo loola kulmi la nuuro loolama kulmin marka ay timaado dawladda Kenya ay booqato magaalada Addis Ababa wasiirka gaashaandhig ii kaadi wasiirka gaashaandhigga Kenya wuxuu la fadhiistaa wasiirka gaashaandhigga Ethiopia la fadhiistaa waftigii dawladda Jubbaland Maxamed Sayid aadan hogaaminayay wasaqiil la kulmay yaa la kulmay wasiirkee la kulmay noo sheegay cid la kulmay damay adaaba ii weydiinay wasiirkee la kulmay wasiir lama kulmay fiir saraakiil ciidan baa la kulmay marka xuduudahaaga dadka ka soo talaabaya aad la kulmaysid oo ina dawlad ahayn oo dawlad ahaan la kulmaynin waxaa la kulmaya saraakiisha xuduudaha la kulmaysa hadda haddii Somaliland lagu qiimeeyo sida Maxamed Sayid ku qiimeynaysid de waxaa la kulmi lahaa maaragtay maxaan ku raadayay taliyaha fadhiya wajaale yaa la kulmi lahaa oo ku filaa laakiin maaha waa dawlad ba aqoonsan tahay Ethiopia wali ma aysan shaacinin laakiin waqtigeeda waa la filayaa inay shaaciso Ethiopia laakiin hab dhaqanka markaynu fiirino iyo qaabka ula dhaqmayso anagu ma naan bixinin aniga Cabshakuur waxaan hadda bixinaya ma wax adiga nuur ee diidi kartaa ma bixin kartidna ma waa wax Ethiopia damac Ethiopia ku jira weeyaan Somaliland way ka shaqaysay juhdi fara badan way gelisay wadiiqadii loo maray lahaana waa u mareen marka waxay u muuqataa inay Ethiopia boqolkiiba boqol qaadatay Somaliland inay dawlad tahay sanadaha inagu soo foodlana waxaan arki doonaa sida hab dhaqanka maanta hadduu sii socdo hab dhaqankan oo kasii wanaagsanaaday oo kasii koray marka de wax hal mar caafimaadku markuu qofku xanuunsado caafimaadku iskama soo boodo hal mar iskama yimaado waxyaabaha inta badan la sheegayay waxay ahayd arrintii badda oo kale in laga yaabo in Ethiopia ay kala hadasho Somaliland inkasta oo wax official oo la shaaciyay aysan markii horena arrintaasi ahayn haddana waftigu markii ay laabteen aan maqal arrintaasi inta adigu dhagaysay ma isleedahay waa laga wada hadlay ama maqashay nuura waxaa jira waxyaabo xasaasiyad leh waxyaabo isagoo faa'iido leh haddana xasaasiyadeeda la jira hadda haddii bal laga wada hadlo Somaliland iyo Ethiopia bad dib soo laba ay maartay usoo wada hadal qaadaan waxaa dhici karta inuu falkaana siyaasadeed ka qarxo maartay bariga Afrika sababtoo ah Ethiopia maartay maxaan ku waxay hadda sameynaysaa dhaqdhaqaaq inay bad raadinayso oo aan qarsanin marka mandaqada hadda loo marka mandaqada waa cabsi waxaa ka jirta Ethiopia inay meel madaxa ku dhufan doonto marka laga yaabo inay ka wada hadleen laga yaabo heshiisyada inuu ku jirto laakiin ina waqtigii la soo bandhigi lahaa ee munaasab ka ahayd inay ahayn baa macquul ah inaan laga wada hadlin way dhici kartaa sababta xiriirka ka dhaxeeya Somaliland iyo Ethiopia ayaa wuxuu ka qoto dheer yahay badda aan hadda maartay waxaan ku raadayay aad ka loo soo celcelinay sababta xiriir soo jireen ka dhaxeeya xuduud dheer bay leeyihiin xuduudaasi waa xuduudaha ugu amnisan ee Ethiopia dalalka dariska la leedahay bay ku jirtaa Djibouti tay la leedahay iyo Somaliland la leedahay Kenya la leedahay iyo xuduudda Suudaan ay la leedahay xuduudda Suudaan hadda markaynu fiirino Ethiopia la leedahay xuduudda Somaliland baa ka amnisan waa hagaag intaynaan u imaanin dawladda federaalka iyo wax ka weydiin doono waftigu markii ay laabteen dabcan wasiirka arrimaha gudaha aan idhaahdo wasiirka arrimaha dibadda oo saxaafadda la hadlayaan arkay muxuu sheegay wuxuu akhriyay war saxaafadeed buu akhriyay war saxaafadeedkaas wasiirku akhriyay waxay ahayd inuu ahaa shirkan shir soo najaxay maartay maxaan ku raadayay kulamo muhiim ana oo waxgal ana dawladda Ethiopia maartay maxaan ku raadayay Somaliland la soo qaadatay wuxuu sheegay uu qeexay intaan hore kuugu sheegay oo ah in maartay maxaan ku raadayay madaxweynuhu ra'iisul wasaaraha Ethiopia la fadhiistay ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo aad ugu amaanay Somaliland dhaqanka wanaagsan ee maartay maxaan ku raadayay maamulka suubana iyo in maartay maxaan ku raadayay xasiloonida iyo nabadda bariga Afrika ay ka shaqeynayaan waxa kale oo uu sheegay taliyaha maartay maxaan ku raadayay nabad sugidda oo laba dal marka la fiirinayo waxyaabaha ugu muhiimsan waa labada taliya nabad sugid si wada shaqeeyaan taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha nabad sugidda la fadhiistay ay wada iyaguna maartay heshiis galeen in heshiis uu dhacay military oo maartay nabad sugidda ma socday waftiga kamid ah waa uu la socday waftiga Somaliland kamid ah uu la socday taliyaha military-guna wuu socday Somaliland taliyaha uu socday taliyaha nabad sugidda inkastoo de kaamirada ku badneen oo de ayna munaasab ahayn taliyaha nabad sugidda kaamirada laakiin waftigu la socday
taliyaha military-guna isaguna heshiis military buu la galay waliba baraha bulshada waxaa lasoo dhigay isagoo maarata maxaan ku rahdaa taliyaha militariga Ethiopia ay wada qoslayaan wada farxayaan oo maarata maxaan ku rahdaa marka shir ka soo baxeen ay aad maarata banaanka ugu sheekaysanayaan heshiis military baa halkan ka dhacay waxaa iyaguna heshiis galay wasaaradda hawlaha guud ee maarata Ethiopia wasaaradda hawlaha guud ee maarata Somaliland wasaaradda maaliyadda Ethiopia iyo wasaaradda maaliyadda maarata maxaan ku rahdaa Ethiopia iyaguna heshiis galay marka wasiirku wuxuu soo bandhigay oo war-saxaafadeed ku sheegay in heshiisyadaas oo dhan dowladda Ethiopia ay soo galeen heshiiskaasina uu yahay heshiis najaxa kana duwan heshiisyadii hore maarata ka awood badan heshiisyadii hore soo galay marka waxaa leedahay qaranka waa najax waxaan dhihi karnaa tallaabo horumar bay qaadeen oo dadku markay isku tashadaan dadku waxay Soomaalidu waxay dhahaan rag tashaday dhul waa toli karaa taaka labadeed waxay u egyihiin rag tashaday kuna midaysan oo xukuumadda hadda say u socoto ku midaysan maarata maxaan ku raacay inay najaxaan oo awloodu najaxaan madaxweynihii hore Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi بكل احترام marka uu safar aado uu ka soo noqdo ama Ethiopia uu la soo kulmo ama Kenya la soo kulmo ama Imaaraadka la soo kulmo ama meel kale uu tago hargeysadii uu soo laabto wadooyinka inta la xiro oo khayriyada la isugu yimaado iyo beerta xorriyada ayaa isaguna intuu gawaarida dusha ka fuulo yaa waxa soo dhaweyn waxa la sameyn jiray anina caadi ahayn laakiin Cabdiraxmaan Cirro waxaad moodaa safaradii inta uu joogay uu sameeyay أنا كل ليبة هدي أجرتنا ما أرك سواء سيدي موصل لوسو دوين شري مركب سفرات كسر نقد لوسو دويني وحفلة دوا وين يسوع دويني يسوع صباحية يفرحات يلوسو دويني أنت عم حصل ما كل مية كدر بان وينه ودني ما نورن كرا السياسة ده اسمه نهارتا مدن مسبحي ومارت محمد كرداي هذا نن حل هي ما هو وحصوا قبطي وحي مارتي وكل رقمية سياسة دي سي هذا هو سياسة اللي جسوا قدبي سياسة هذا ما أنت جوكتها وحالا جاي وين ندن وأركن إن مارت محمد كرداي ياركا يمقلا يسون وحبس مني وأنا هرنا وهو شجوا لبد اللي بح أمصن بخطرة نن كان إنه أنتم مجالات حرا ومارت تكامل الشقة حرا ومارت محمد كرداي سود دوية لده والله جاي بدخلي ماليات أما الشعب كوسه لها أما الدولة دوسه حرام لها ما لين كائن وباقضه إنه كدر بدايو أنتو شقده سواء قبل هاي قرن كلها سواء قبته إنه يسوي أمسن جوري ستو مركب وحلاقة وحبناقن كلا وضع شخصي وكحرنتا بحوين ما دولة الفدرالية الصومالية مركز تو مدحوين مصبح حنتي وشوي وسفر رجله جارهنا هذا حلو حسوستا سفر كي جنب بيساو وكتجي دولة الصومالية حتى وحي قاعد هير حرير كوتشر تجنب بيساو وضغي غار إلى هاي حرير بالله لهنا ما يشريسا مالك الله طبعا وتجينا وكهذين وحيا أنت هذا لكن عبد الرحمن عرف شوي كل هراء ومارك مكهذين هذا سفر كيس إثيوبيا دولة الفدرالية الصومالية كهذين نيوهن هرتا إيه الصوماليا وقت جاني نجوبنا من الدولة أول له كهذا الفدرالية الصومالية كهذا يعني عدا إسلام ده ما يدعدين يا نورو إن هانك سياسي مركو جرو هي هانك قرار مركو جرو وحل جي فرماجات كهذا يسا حل يجينا بيساو الله شري حديدك ما رتم حنك كل هذا يسحق حاجة شو ده يجرتي وده هذا الكسومالي الآن ميل في عمبو مري فرماجة حتى مروا وسكود جاي إنه كده جو مجال هرجيس وحتى ومارت سيها صدق وش جاي هذا السوري الصومال لما كون عيان إنه كرسي جمد حوينها فترة الكيمادان ويسوق مرة كفر دي إنه كور الجنيه وسبب تأسيس من نماذج الصومالي عشان كلا جوي وحوها ننهن صوماليات تبرت ماشي دكتور ننهن صوماليات كشقيني وها ninkan hooyo Soomaaliyeed barakicinta adu ka shaqeynay marka kuma mashquulsan waxa dalka dibadiisa ka dhacaya iyo waxa dawladda darska ka dhacay oo iikaade arinta muqdisho waxa wax gaar ah moogtahay gudaheeda waxaan ku weydiiyay dawladda federaalka sayba uga wareynaysaa waxay ku mashquulsan tahay afgooyay ku mashquulsan tahay inta ka shaqeysay ma oga baa laga yaabaa inay maamulka Soomaaliland maartay maxaan ku raday inay yimideen oo hargeysa inta ka soo duuleen la yimid maartay Addis Ababa inay ka warhaynin baa dhici karta haday ka warhayaan Xasan Sheekh Maxamuud baa ka warhayo dib badan kuma hayso culays badan kuma hayso wax guduhu ka shaqeynaya kala qaybin guduhu ka shaqeynaya siyaasad guduhu maartay maxaan ku raday qaybiyo xukun ka shaqeynaya wuxuu ka shaqeynaya oo lacag urursanaya soo 5 sano dambe uu si joogi laha ma oga marka wax dalka dibadiisa ka dhacay dariskiisa ka dhacay marka taasi Soomaaliland bay dan u tahay inuu saas isaga soo mashquulsanaado shacabka Soomaaliya dawladda Soomaaliland bay dan u tahay saydan ugu tahay waxay dan ugu tahay waxyaabo fara badan oo caqabadayn lahaa shaqadooda qabsanay de shaqadooda haystaan waxyaabo fiiri walaalka haddaan wax taraynin hadda walaalka haddaan wax tarayn
oodan waxba aadan dhahayn walaalo waxaan ku taraya aadan dhahayn Soomaaliland hadda waxay u baahan yihiin in wax la taro haddaan wax la tarin in dhibaatadii lagala maqnaado oo dhibaatadii lagala mashquulsanaado dad dambe u tahay aad buu mahadsan yahay saaxiibkay Cabdishakuur Axmed Cali ayuu ahaa intaasaan kusoo gabagabaynay qodobkan kooban ee aan ku falanqeynaynay safarkii madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirre iyo waftigii hogaaminayay ay ku tageen magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Ethiopia oo ay galabta kaga ambabaxeen magaalada Addis Ababa isla markaasina ay caawa u hoydeen magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland inta markale kulmi doono fiican